Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Laftagareen iyo Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si wadajir ah u furay shir looga hadlayay horumarinta dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle kaasi oo maanta ka furmay magaalada Baydhabo. Shirkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Wasaaradda Qorsheynta Koonfur Galbeed iyo Midowga Yurub, waxaana diiradda lagu saarayay horumarinta maamulada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed, isla markaasina shirka kaalin weyn ay ka qaadan doonaan safiirada ka socda wadamada Midowga Yurub. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa maamulka Hirshabelle iyo xubnaha wafdiga Midowga Yurub uga mahadceliyay doorka weyn ee ay ku leeyihiin shirka, isagoo sheegay in la xoojin doono wada shaqeynta dhinaca amniga iyo horumarinta labada maamul goboleed. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wafuudda ka kala timid oo ugu horeeyo madaxweynaha Hirshabelle iyo wasiirada Hirshabelle. waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo wafdiga uu hogaaminayo safiirka European Union iyo safiirka Sweden, maashaha ay noo yimaadeen oo shirkan noogu yimaadeen. aad iyo aad ay u mahadsan yihiin, soo dhawaada. aad baan ugu faraxsanahay in ay noo yimaadaan labadaba oo shir aan inta ku wada qabsanno oo aayaha iyo mustaqbalka iyo horumarinta Soomaaliyeed gaar ahaan labada dowlad goboleed ee Hirshabelle. Wasiirada Qorsheynta Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle Axmed Madoobe Nuunow iyo Guuleed Macalin Cabdulaahi ayaa si wadajir ah saxaafadda uga faahfaahiyay waxyaabihii shirka ka soo baxay. magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meelgaarka Koonfur Galbeed shir ballaaran ay wada shir gudoominayeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo madaxweynaha Hirshabelle mudane Maxamed Cabdi Waare. shirkaas oo ka soo qayb galeen labada gole ee wasiirada oo Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo safiirka qaramada safiirka oo EU-da iyo safiirka dowladda Sweden-ka iyo madax kale oo la socotay. waxaa qayb ka ah shirka oo mudan in la xuso madax ka socotay dowladda federaalka, wasiir iyo xildhibaano. ajendaha shirka wuxuu ahaa aan kala hadlaynay EU-da arrimo amniga guud ee labada dowlad goboleed iyo sidii la isaga kaashin lahaa xasilinta labada dowlad goboleed, iskaashi dhaqaale ay yeeshaan labada dowlad goboleed Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. runtii labada gobol waxay ka midaysan yihiin dhinaca macnaha xoogga wax soo saarka. waa deegaanka Shabeellaha Dhexe iyo macnaha South West Koonfur Galbeedba waa dad macnaha 80% ay yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato. in beerihii loo helo xal dhab ah iyo sidii wax loogu qaban lahaa dadka barakacyaasha ah, loo heli lahaa xal waaro oo dadkii macnaha xal loogu helo sidii shaqo abuur iyo loogu abuuri lahaa. marka labada state waxay ka midaysan yihiin sidii loo marinaleyn lahaa hadafka iyo macnaha natiijada guud oo ah soo noolaynta iyo isku filnaansho dhab ah inay labada state ay yeeshaan. marka shirka kan wuxuu ku bilowday guul, insha Allah tacaala macnaha wuxuu ku dhamaanayaa guul. Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayaa bishii hore ee ka soo gudubnay yeeshay heshiis laba geesood ah kaasi oo ku dheehan iskaashi labada dowlad goboleed Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Xuseen Cali Geesay, 5TV, Baydhabo.